fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ورقصة صاحب يال ملوبا دوكا جوكتان ومالي نمو تلاذا بالمانتا يو ورقو وين عياره يوصل خليل سوق عيارتوغا ايانو يجي دونا يدو رونالدو وقصهريي حالي ضربة جزاء عيارتي يوفنتوس لا عياري سكوخدا كوبادا عagta كييفا inkastoo Kiev laga adkaaday oo yaani Juventus ay adkaatay haddana rigooru odagu baa la qabtay oo waa odagu waa qasariye darba jazaagi amrigooruhu uu turtayo inuu dad baa Ronaldo aysan moogtahay marka dad baa xalay dhafrayo odayga ciyaaraya warada waxa meeqa waa lagu wadahay odagu xalay waa qasariye rigooradiisiyo yaani Cristiano wuxuu goolasho kula tartamaya iyo kabta dahabta Yurub kula tartamaya asagu wuxuu sanadkan doonayaa in Serie A hore ka tago horna ka qaato gool inta weyn u badan tahay inuu qaadanayo laakiin hal kab kala jirto oo midda Yurub oo dhan ninka ugu goolasho badan oo Messi kula tartamayo Messi 18 gool buu maraya Ronaldo 14 gool Serie A haystay xalay marka rigoori loo dhigay waa qasariyay Cristiano waa laga inkaarsaday marka Juventus baana 3 eber kaga adkaatay Kiev Douglas Costa Emre Can iyo Rugani ayaa goolasho ciyaartu kala dhaliyay balse waxaanu fiirinaynaa labada nin ee Messi iyo Cristiano marka la fiiriyo dhanka rigoor Turku wax sidaas ma kala duwana dadka qaar ba waxay maleeyeen Ronaldo inuu darbad xoojiyo marka rigoor ay tagto in Ronaldo aad ugu khatar badan yahay inkastoo Messi dhowr jeer aan aragnay isagoo rigoor laga duubayo laga qabanayo maxay yeelay si dabacsan oo yar buu u tuuraa dheedheel waa inta badan haya waa ku dheedheelaya darba jazaagi xataa tartiib u tuuraya markay noqoto rigooro qatar badnaantu inta badan waxay Soomaalidu tiraahdaa Ronaldo laakiin labadooduba maanta ku sheegaya kadib xal rigoori uu qasaariyay Cristiano Ronaldo waxay ka dhigan tahay isaga iyo Messi tiro isku mid oo rigooro bay qasaariyeen marka laga hadlayo tartamadii oo dhan ay ka soo qayb galeen Ronaldo iyo Messi macal hatta hadii lagu daro rigoorooyinka la tuuro markay rigooro ciyaartu gaarto labadoodu waxay qasaariyeen min 25 rigooro bay qasaariyeen oo marka warkaas idin mara inta hebela fiican idin dhila waxa idin roon waa ogahay aniga yaa haddaan bicmada lagu tuurin waxa ku roon in lagu yiraahdo bareejo waa inaan hadii la yiraahdo hebel baa ku roon dhanka rigooradu cida kala qoliyuu kala waa gafuurkay taagayaan moogtahay baryahan Soomaalidu qaar waa Ronaldo sayeen qaar waa Messi sayeen oo ogow marka labadu ninba rigooruhu ku qalaba fiicno waxa weeyaan min 25 darba jisabay qasaariyeen oo bal maanta iyo suuq khaliibsigu ciyaartooga warkii ugu yaabka badnaa ayaa suuqu taxalan idinkaga sheegayo waatan wararkii hore kugu soo gudbiyay barta YouTube-ka oo aan idinku erin nimankii Barcelona ahaa heshiis la yaab lay sameynayaan waa kay hadda waaba sameeyeen Barcelona shalay ciyaaryahan dalbatay isla xalay waa heleen yaa nimba waxa la yiri nimba ma taqaana feeling buu waxa kaaba helay ariga kaayo Kevin Prince Boateng ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Barcelona waana heshiiska ugu weynaa ee saaki suuqa ka hadalhaya Barca ayaa waxay la soo wareegtay nin yaa 30 sano jir bay la soo wareegeen oo loo malaynin ba inuu ma taqaana yaani kooxdan ku soo biiri karo asagu xataa ma malaynin Prince Boateng xilligan ayaad koox weyn oo Barca ku biiraysa misleehinba markii telefoonka Barca u helay ariya waa Barca warkaas ma cad yahay hawa Barca kula hadlaysa wariya warkaygu hubiya qayb ciyaarine war waxa kula hadlay waa Barca Prince Boateng waa ku baahanahay warkaas ma cad yahay haabay ku yiraahdeen war heshiiska lagu noqonayo suula isla markiiba kooxdiisu wuxuu yiri warniyo halay fasaxo isla markii suula waa ismac salaameeyeen wuxuu yiri war haddaan soo socdo haddaan soo baxa boorsooyinkaygan soo xiranaya habeenka igu bariyay habeenka xataa igu subax igu soo dhalnay yiri habeenka waan tagaya xalay waa soo guuray Prince Boateng isla xalay waa wareegay ka war yaani ninkan ma filayn ba inuu Barcelona oo koox weyn oo sida oo kale ugu biiri doon hadda inkastoo Prince Boateng uu khibrad weyn leeyahay haddana ma aha nin aad u dayarna ma aha wariyahan toosna ma ahan waa nin garabka ka ciyaari kara haddana laakiin dhinac kasta gool ka dhali kara marka Prince Boateng Barca ayaa qaadatay wuxuu noo xalay isla markiiba soo duulay Spain u yimaaday waa la soo bandhigayo maanta talaadada si toos loo soo bandhigi doona inkastoo fanaanadu xirtay lambarka 19 baa loo buufiyay maanta talaada ayaa la soo bandhigi doona ciyaartooyga Prince Boateng oo booski mar uu ka baxay uu ku xoojin doono Barca Cusmaan uu labada toddobaad uu ka maqnaanay ciyaaraha uu si xoojin doono booska kanu marka Prince Boateng Barca ayaa gacanta ku dhigtay nin aan filin sasuul ciyaarey isla markiiba xal waa yimaade Barca ka war waagam u barin ninkan waa habeenkii buu soo guuray marka ninka kanu Prince Boateng sidaan buu Barca ugu mid noqday durba waraysiyo uu bixinayay intuu soo socday wuxuu bartiisa ku soo qoray ma taqaana Barca ayaan waan soo socdaa hatta markuu soo baxay training ka soo duulay wuxuu yiri Barca jidkan ku soo jira waa idin soo hayaa buu yiri ka war Barca laga guuray dhikii dhawaab wuxuu yiri kabtan waa weyn tahay كب برشلونة أيها كصاد البتويري كابتن لمبر أفرتن ويرو معناه دعس كان أفرتن لمبر كيسو أفرتن ويرو معناه بارش ما باني صاد البتي وحيري كابتن لمبر أفرتن واي
kabta Sassuolo uu la joogay waa lambar 1 iyo mar lambar 2 leeyahay macnaha waa un koox yar markii kooxda loo barbardhigo wuxuu yiri jidkan ku soo jira Sassuolo se waan ka xumahay inaan idin murugeliya ayuu yiri ninka kan Boris Boytin mar wax laga weydiiyay saxaafadu wax ka weydiiyay Real Madrid ka war baa la yiri markaas yiri waxba Real Madrid ay weydiin anigu waxaan ahay ciyaartoy Barca ah arimaha Barca ayaana diirada saaraya waxaan rajaynayaa Real Madrid inaan u tago Bernabeu oo aan gool kaga soo dhaliyo Clasico soo socota Clasico waxa la ciyaari doonaayo ya Marcelo la ciyaari doono Boris Boytin wuxuu yiri durba ma taqaana waxaan rabaa inaan Clasico ka hor imaado Real Madrid oo aan ka dhaliyo gool buu leeyahay marka heshiiska ayaa suuqa ugu weynaa la yaab noqday oo fajac buu noqday ninka in Barca la wareegto bariyahan dhalinyaro weerar raadinaysayo marka waa Boris Boytin gaynayaan iyadoo Vidal laga yaabana ay haddana ku soo dareen Barca bariyan qaar ugu raadsanaysaaba Man City naqus bay ka taagan tahay la wareegida ciyaartoyga Dijon markaan gacmaha way kala bixin baa leeyahay Paris Germain baa u dhow ciyaartoyga inay gacanta ku dhigto halka Paris sidoo kale Alan ninka la yiraahdo Napoli ciyaaray aad ugu doonayaan oo ay qadka dhex u raadsanayaan wali waxa ciyaaraha maanta ugu waaweyn Balotelli ayaa lagu wadaa inuu buuxiyo booska ciyaartoyga Sassuolo ka tagay ee Boyten ninka Ghana ayaa Barca lama filan ugu biiray waana walaalka ciyaartoyga Bayern Munchen ee Jerome Boyten hadda waa Barcelona booskiisu Balotelli baa loo wacayaa la leeyahay Paris Germain qoliyaha xiriirada kubadda cagta dalka Faransiiska dhisan ayaa ku dacweynaysa in ciyaartoyga Rabiot ay bahdilaan Rabiot maadaama ay ogaadeen Barca inuu ka tagi doono xilli ciyaareedka markuu dhamaado hadda waxay bilaabeen xataa in kooxda koowaad ay yiraahdaan hala tababaran waxaa la yiri marka xiriirada wadanka Faransiiska ka dhisan oo ay kamid tahay UNFB waxay leeyihiin waa cadaalad daro ciyaaryahan xirfadla ah inaad bahdishaan haduu idinka tagay ma bahdilaysaan yani ninku waxay yiraahdeen kooxda koowaad hala tababaran waxay yiraahdeen hadii kooxda koowaad la tababarnayn waa ciyaaryahan weyne muxuu ku sii tababaranayaa bay yiraahdeen marka xiriirada kubadda cagta Faransiiska waxay aad dusha ka saarayeen eed nimanka la yiraahdo Barca oo ka careysa yani wiilkooda ka careysan ciqaabaya waxay yiraahdeen waxaan waa ciqaab ad ku haysaan Rabiot haddaad ninku haysan iska sii deeyo ninkan ayaa qarka u saaran ku biro Barca waan u diidin u biisho ciyaaro Van Dijk waxa loo arkaa inuu noqon doono difaac ugu fiican taariikhda Premier League waxa sidaas qabaad ciyaartoygii hore Liverpool ninka lagu magacaabo Gary Guseppe wuxuu leeyahay ninkan wuxuu noqon doonaa ninka ugu fiicnaa Premier League inkastoo ay ka soo ciyaareen Bruno Ferdinand James Tam John Terry iyo kala waaweyn horyaalkan haddana Van Dijk markaad fiiriso caqligiisa xirfadiisa iyo wax walba waxaan maleynayaa Van Dijk inuu noqon doono ninkii ugu fiicnaa Premier League difaac ee soo maray horyaalkan Hazard oo ka hadlayay hadii Zidane uu ka tagay Real Madrid inaan isagu Real Madrid ku biireen iyo hadii uu Chelsea ka tagayo Hazard wax badan buu ka hadlay saakay waxa uu leeyahay Hazard anu inaan jeclahay inaan Madrid ku biiro waan jeclahay cidiidaysa ma jirto midda inaan Madrid jeclahay ma qarsan karo waan u saxiixayaa laakiin haduu Zidane ka tagay Real Madrid oo miyaan iska dhaafay Real Madrid ma ku biiray miya waan ogahay yiri Real Madrid oo Zidane la'aan ah inay koox kale oo ka duwan tahay yani aynu saa ahayn laakiin kulaha Madrid still Madrid weeyaan buu yiri mar wax iga hor istaagay ma laha yiri jaceelkan u qabay waan jeclahay dhan kalena halkan Ingiriiska oo soo ka shaqeyn wuxuu yiri wax walba ayaan ku guuleystay kuma shildigu umaanan wili ku guuleysan waxaan uu ninkan u sheegay in uu doonayo wax ka duwan inuu sameeyo kubadda cagta markuu Ingiriiska ka baxo yani England buu hadda kadib marka England ka tago meelo kala duwan ka ciyaara ayaan rabaa yiri Hazard laakiin waxba way noqon kartaa yiri suurtagal inaan halkan u sii joogo wuxuu sheegay tababarihii hore Conte inaanu isagu niyad jabin oo yani gool badan uu ka filayay haddana uu saari ma niyad jabin yiri hadda kor waxay tiraahday Conte baad niyad jabinaysaa anigu intaan awoodo gool waa dhalin karaya laakiin haddana wax ka badan aan awoodi ma samayn karo leeyahay Zari hadda wax badan oo gool buu iga rabo asna uu iga careysan yahay markaas wuxuu yiri wuxuu caroonaya macallimiintu inaan wax badan sameeyo anigu intii karaankayga waan sameynaya yiri marka Hazard mar walba Madrid waan rabaa yiri ha ma sidaan ha baxo ama ha joogo waxa kaloo maanta iyana ciyaaraha weyn nimankii Liverpool ahaa macalinkooda wuxuu sheegay inaanu suuqan kale isugu ciyaartooga wax ciyaariyaan aanu lagala soo wareegi doonin oo kale wuxuu cadeynayaa si kastoo kooxda dhaawacay u galeen inaanu ciyaartooy filan la soo wareegaan isla bishan Janaayo maadaama Barca ay qaadatay ciyaartooga Boyten oo nin da'diisu weyn tahay haddaba Barcelona waxay qaateen lambar 9 ahaan bay u qaateen yani weerar ka caawiya sawir laakiin ma ahan lambar 9 toos ama ahan ninka 32 jirka taariikhdu waxay leedahay in nin Barca qaaru ay la wareegto waqtigan isaga iyo Vidal oo kale waa wax record weyn oo yaab leh oo taariikhdu Barca aan looga baran ogow waxa lagu leeyahay 14 xilli ciyaareed ee la soo dhaafay Barcelona laba ciyaaryahan oo 30 jir ka weyn u bayso iibsatay waxay ahaayeen Henrik Larsson oo 32 jir lagu keenay iyo Dimitri Albertini oo 33 jir lagu keenay 2004-2005 waa 14 sano u dambeeyay labada un baan qaanan qaaro 30 jir kor u dhaafay keeneen yani kooxdan waxa lagu yaqaan dhalinyaro yar inay keenaan hadda 4 sano ka horna waxay keeneen hal ciyaaryahan oo xoogaa da'diisu 30 ay tahay waa laba ciyaaryahan oo 30 jir ah wuxuu ahaa mid kamid ah Kaludi Bravo laakiin 14 xilli ciyaareed u dambeeyay Barcelona 63 ciyaaryahan oo ay la soo wareegeen kaliya 7 ciyaaryahan
kaliya 7 ciyaaryahan baa da'weyna oo ay ku jiraan Vidal iyo Boateng oo iyagu dhaafay da'da 30 jirada dhaafay marka Barcelona ayaa ninkan u isticmaali doonta qorshaha B yani qorshe labaad bay ka leedahay laakiin Guardiola wuxuu aaminsan yahay qorshe B inaanu jirno qorshaha koowaad in la isku xoojiyo wax weyn tahay Lorente iyo Kroos baa dib ugu soo noqday tababarka Real Madrid waxaana lagu wadaa in ciyaaraan kulanka Khamiista Real Madrid ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Girona haddaba ninka Barca la soo wareegtay Brice Boateng imisa koox buu soo ciyaaray wuxuu soo ciyaaray kooxda Hertha wuxuu soo ciyaaray kooxda markale Berlin buu noqday Tottenham Dortmund Dortmund buu soo ciyaaray Bournemouth uu ciyaaray Milan Schalke Milan markale Milan Frankfurt Sassuolo Barca ninka kanu 10 koox ayuu sii maraya xirfadiisa kooxa badan buu soo ciyaaray Ashley Cole oo ciyaartoy da'weyna ku biiray kooxda kubadda cagta Derby County oo hadda tababaro ka yahay saaxiibkiisii hore Frank Lampard ee Chelsea wada joogeen 30 jirka kan ayaa ku biiray kooxda ka Derby waa ninkii hore Arsenal u ciyaari jiray waxa kale ciyaaraha maanta weyn waxa kamid ah Man City ilmo yar yar bay u diyaarsadeen sida ciyaartoyga Carlo Bevedo Bosso Taylor Richards waa rag yar yar bay u diyaarsadeen ciyaartu Carabao Cup semi finalkiisa oo ay habeen dambe la ciyaarayaan nimanka la yiraahdo Burton maadaama kulka hore sagaal ay ku badiyeen looma safayn niman waaweyn oo ilmo yar baa laga adeejin doonaa Higuain maanta ayaa lagu wadaa inuu u soo duulo dalka Ingiriiska waliba gaar ahaan magaalada London ayaa lagu wadaa Higuain inuu soo gaaro maanta si lamid ah ciyaartoyga Milan ay raadinaysay Baytag ayaa isna lagu wadaa maalinta bari ilaa Jimcuhu inay sugaan Milan inay ciyaartoyga la wareegi karaan ilaa Milan ilaa Jimcuhu ku qaadan kartaa ninkan Higuain ay ku bedelanayaan Baytag oo Genoa u ciyaara inkastoo shal ciyaarin ciyaartoygu Genoa waxay doonayaan Milan ciyaartoy ay siisa Genoa si iyuu xagga u sii maro Milan hadda waxay raadinayaan ciyaartoyga ay Genoa ugu bedelan lahaayeen ninka kanu Baytag marka heshiiskan wuxuu ku xiran yahay ilaa ciyaartoy Milan uu ka baxo oo Genoa ku Genoa kama soo qaadanin Baytag markii la jimcuhu waa heshiiskan u dhici doona kan Higuain maanta ayaa lagu soo wadaa Higuain oo talaada ah maanta talaada inuu yimaado lagu wadaa Ingiriiska London still ciyaartoygu waa la filayaa maanta ninkii Morata ahaan Atletico ku sii dhawaanaya ciyaartoyga lagu magacaabo Scott McTominay heshiis cusub oo Manchester saxayo ilaa 2023 ciyaartoyga kan ayaa la rafilay inuu amaah ku bixi doono waxaanu sheegay in hadda wax badan uu ka baran doono kooxda tan ee Manchester ilaa 2023 baa la geeyay Tominay waa wiilkii yaraa Mourinho safay arrimaha Hazardna uu ka hadlay uu todobaadkan yarin maanta shalay uu ka hadlayna waxa kamid ahaa hadii uu Zidane Manchester aadaya ma jirto yiri haduu Zidane ka tagay Real Madrid still maxaa diiday Real Madrid wayaan inaan ku biiro macnuhu wuxuu cadeeyay wararka sheegi kara Hazard inuu Manchester kula biiri karo ninka reerdo Zidane wuxuu yiri Zidane haduu ka tagay Madrid horta waa arin kala wayaan laakiin haduu baxay Real Madrid waa Real Madrid macnuhu haduu Zidane Manchester ku biiriyo yiri ma jirto yiri Chelsea kama xariisiinayo Hazard hadal weyn buu ku hadlay maadaama Boateng ay qaateen Barcelona Dani Suarez baa qarka u saaran ku biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal hasoo daho laakiin taageerayaasha Arsenal way ogyihiin ciyaartoyga ugu dambeyn inuu imaan doono kooxda tan ninkii Hector Bellerin ahna waxay warar ku sheegayeen inuu garoomadu ka maqnaan doono inta ka dhiman xilli ciyaareedka waliba xataa waxa suurtagal ah xagaaga dambe bilowgiisa xataa inuu sii maqnaado ayaa lagu wadaa ninka Hector Bellerin cunuga ma isaga duceysiin Arsenal ay dhaawac badna oo cisbitaal buu u jeefay dad aragtaba waraga hadii la waayo cisbitaalada laga soo helayo waa dhaawacayn 90 ninkii Kevin De Bruyne ahaa waxa uu ka hadlay horyaalkan sanadka kanu wuxuu yiri Liverpool maadaama hadda afar naga sareyso horta wuxuu yiri Liverpool hadda horyaalkan u qaado u qalantaa anagu ma ka xanaaqi doono haday qaadaan way u qalmaan horyaalkan laakiin anagu waxa nagu waajib yiri inaan maalin kasta badino oo aan daba joogno ugu dambayna garsoorihii hore Premier League ka shaqeyn jiray Maccleston-Berg ayaa weerar ku qaaday Mohamed Salah baryahan dhadhacoogiisa batay oo rigooro been ayuu isu turturaa baa leeyahay oo maalin wadna rag kale oo badan way dhaleeceynayeen Mohamed Salah haddaba Maccleston-Berg wuxuu qabaa Mohamed Salah inuu isturturo oo uu isturtur been sameeyo si rigooro loogu dhiga waxa uu soo qaatay tusaale ahaan rigoorihii Saqo ee Crystal Palace buu soo qaatay iyo rigoorooyin kale oo Arsenal kulmadooda ay ku jireen iyo Newcastle wuxuu sheegay inaanu fursad u haysan inuu gool laadi karo sidaa daraadeedna wuu isturaya oo rigoor raadinaya baa leeyahay marka Mohamed Salah waa lagu dhagayay baryaha kanu waxa leeyahay Mohamed Salah wuxuu noqday qiyaano loo isturtura baryahan Sterling baa laga yaabaa Banjir isturture Mohamed Salah baa laga yaabaa yahayo hadda ganax weeyaan qofkii lagu arkay si bareer isku turturo laba ciyaarood baa laga ganaxay laakiin Mohamed Salah ilaa hadda ganaxa waa qabal leeyahay garsoorayaasha hore Premier League waxay leeyihiin Mohamed Salah il gaar ha loo lahaado waa isturturayay wixii warar kale oo sportiga ku soo kordha waan dib aan isku soo noqon doonaa saaxiibayaal nabadgelyo